halkani waa suuqa Inji ee magaalada Garowe mashquul fara badan ayaa laga dareemayaa dadkuna waxay ku mashquulsan yihiin u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin isbedel badan ayaa ka muuqda marka loo eego maalmo kooban ka hor waxaana halkan ka tukaamaysanaya dad fara badan ganacsatada suuqan maxay u diyaariyeen bulshada kala duwan maxaa isbedel ah oo ku yimid dhanka sicirka suuqa maciishada waxa ka jawaabay Cabdi Hodan Maxamed Jaamac oo kamid ah dukaanlayaasha suuqa Inji ee magaalada Garowe waa dareemayna diyaar garow ku aadan bisha Ramadaan anagu waxaan ugu diyaar garownay maadaama haysano bakhaarkan aad arkaysido dan wadaag channel trade company waxaan ugu diyaar garownay inaanu macaamiisha soo dhaweyno alaab jaban u keenno ay naga helaan maadaama qofkii adeeg doonayo wax walba uu u baahan yahay inuu meesha ka helo baan diyaar garownay in badanna waa ku dadaalayna insha Allah aad baa waxaan soo dhaw Jaamac Ali Nuur Xayir waxa uu kamid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Garowe waxa uu ugu baaqay bulshada inay caawiyaan dadka aan awoodin iibsashada iyo afurka bisha barakeysan ee Ramadaan waqtigu waa adag yahay hadda nugaal inagu baynu joognaa nugaal waxay ku qaboobaan jiray roobka waa iska yar yahay ganacsatadu sideedaba Garowe way ka kulushahay magaalooyinka kale way ka kulushahay way ka dhaqaale kulushahay oo macnaha waxa weeye dhaqaale badan baa yaala laakiin dadka uma naxariistaan anigu marka horta baaq ahaan waxa soo jeedin lahaa maanta dadka danyarta in loo naxariisto oo loogu naxariisto ganacsiga in la jabiyo ganacsiga in la jabiyaa waa wax nabigiiba amaanay umadiisu ugu duceeyay wax wanaagsan weeye dadka in loo turo maanta maqaayadaha Garowe koobka shaaha qayb $1 laga siiya kuwa $1 iyo bar laga siiya 60,000 shilin koob shaaha la siinayo iyo caagad biya waa wax mucjisa wax aad u adag weey dadku ma wada awoodi karo midda kale oo diibtooyinkii caadiga ahaana waa ku dayanayaan inuu iyaguna heerkiiba sii tafayaan haddeer marka qofku inuu afuraaba maanta wax culus bay noqonaysaa qofku inuu suuqa ka afuraana wayba adag tahay oo suuqiina waa qaali kii reer u joogayna reerkii waa laba jibaar suuqa wuxuu kaga soo qaadanayaa waa wax qaali weey marka anu baaqahan maanta waxa soo jeedin lahaa dadka reer Garowe oo ganacsatada ah dadka masaakiinta ah loo turo magaalooyinka kale ha la isla simo maanta Garowe iyo waa la isu warhayaa iyo Djibouti isku xeer bay noqdeen jaangooyada wuxuu gooyana lama garan karo dhanka kale ma jiro wax isbedel weyn ah oo ku yimid qaybaha kala duwan ee qudaarta maciishada hadda wax isbedel ah oo ku yimid ma leh farxad baan ku taaganahay nimcada Ilaahay oo idil banaanka inoo soo dhigantay basashi sida yaanyada sida baradhada wax kastaba kabsartii barbaroonigi kaarotadii waxyaalihii maaragtay ramanaanta aan soo dhaweyn lahayn oo dhan waa noo diyaarsan yihiin macal qarihi Muna Ismaan Ciise TV-ga caalamiga Universal Garowe